waasha mahadsan tahay in badanna waan ku celceliyey khilaafka horta mid shaksiya maaha mid niman dadkaan dad wada saaxiibaha iswada yaqaana taariikh wada leh soo wada joogay dawladda kasoo wada shaqeeyey muddo hadda soo wada shaqeynayo 2 sana weeye issuga ugu weyni oo aan sida aan qiyaasi kale isku hayaa waxa weeye isfahamdaro ka jirta dhanka mabaadi'da laga aaminsan yahay federalismka oo ah sida waxaa loo yaqaano center and periphery oo ah dawladdii dhexe iyo gobol goboleedyadii awoodaha see loo qaybsanayaa resourceka see loo qaybsanayaa dhismaha dawladnimo federalismka qofba wuxuu ka aaminsan yahay dabcan dawladda dhexe markasta oo qofka uu joogo wuxuu isu burinayaa mar walbaaba in dawladdii dhexe ay awoodda yeelato iyadoo ay dalkii mas-uul ka tahay maxaa la yidhaahdaa saas daraadeed ay tahay wax kasta in looga dambeeyo dhanka kale markii dowlada federal la joogo dawladaha xubnaha dowladda federaalkuna ay leeyihiin war mas-uuliyad gobolku anaga nagu dhacaysa puntland baan joognaa 1200 kilomitr oo soomaaliya ayeeye markii galaxyo laga soo bilaabo ilaa caluula aad tagto intaas mas-uuliyadeeda anaga u dhacaysa baahideedii caafimaad waxbarasho biyo amni marka dawlad hadda dhexe oo intaa naga kaadaysa oo nala qaybsanaysa caafimaadkeedii wax ka geysanaysa gacan waxbarashada ka geysanaysa amnigii wax nagu taakulanaysa ma ay jirto sidaas daraadeed waxa weeye ma dhici karto in la yidhaahdo awoodii dawliga ahayd oo dhan waxay gacanta ugu jiraysa dowladda federaalka ah mas-uuliyadiina idinkaa leh oo haddii macalimiintiinu ay mushaara waayaan haddii askartiinu ay raashin weydo haddii shaba kuma lihin dhibtu taa weeye waxyaalaha midaan kuu sheegaya dowladda federaalka nabad waxay tidhaahdaa waxaan bixinay mushaharkii shaqaalaha iyo civil servants waxay ka hadlayan waxa weye shaqaalaha xamar jooga shaqaalaha marka puntland jooga midka jubbaland jooga midka southwest jooga midka jooga mataqaana hirshabeelle waysan shaqaalii dowladda ahayn waxay oranaysaa mar kale ciidamada iyada maaragtay ilaa december mushaarkooda waa bixin haye waxaa laga hadlaya s n a da joogta inta udhexaysa jowhar iyo markamiya laga hadlaya jooga marka waxa weeye waxaa la isku hayaa waxa weye essenceka waxa weeye waa nidaamka federalismka waxa laga aaminsan yahay iyo awooddaas iyo mas-uuliyaddiisa loo qaybsanayo waa gartay dawladda dhexe ee federaalka dabcan sharciyan markii la fiiriyo dalka ayay mas-uul ka tahay marka la eego awoodo waxaa jira madaxweynahana sida uu hadalka u dhigay ay leedahay dawladda dhexe markii la fiiriyo hanaanka federaalka oo ay kamid tahay ciidamada arrimaha dibadda waxyaabo badan oo noocaasiya lacagta wadanka uu yeelanayo marka adinkii laftirkiina maamul goboleedyadii ma u muuqataan in banaanka xiriir aad la samaysanaysaan in aad raadinaysaan waxyaabo dastuuriyan aadan xaq u lahayn ayada oo dhinaca kaleetana dawladdii dhexe ay joogto oo sharciyan haddii la wada aqoonsan yahay dawladdii iyo dastuurkiiba inay shaqaynayaan haddana adinka aad wax faramarooqsanaysaan sida laydinku tirinayo maya walaashay adduunka wadamada federaalka madaxweynihii anigu waxaan ka nimid dawladda federaal waan ka nimid oo maraykan la yidhaahdo gubernatoriyaasha maraykanku wadamay tagaan oo iga soo galaan heshiisyo laakiin de dawlad dhexe heshiis ka soo galaane wadamadaasay tagaan kamidihii heshiis la galaan gubernatoriyaasha gobolada kale arkaan oo dhigooda ay la sheekaystaan oo wadneen xamaraan micnaheedu maaha anigu haddaan jaa in aado ama aado bahalkii in anigu madaxdii dawladda aan leeyahay marka waxa weeye micnaheedu ma aha dawladda federaal haddii dawladda tahay qof banaan ma aadi karo statekiisa maalgelin uma raadin karo ganacsatadiisa suuq uma raadin karo maaha micnaheedu waa garta waxa weye adduunka saa uma shaqeeyo marka kamana caagana inuu ka bixi karin inta udhaxaysa madaxweynaha puntland inuusan gaasi karin maaha inta udhaxaysa qaarkacyiga boosaasan way waxaa jirta in guddoomiyihii golaha maamul goboleedyada uu xilki ka tegay madaxweynihii koonfur galbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan aragti ahaan sidaad u aragtaa hanaanka ay marayso maanta koonfur galbeed iyo sidoo kaleeto in xataa adinkii laftirkiini qayb ahaan golihiini iswata ee maamul goboleedyada qayb ahaan ay durbaba muuqato inay meesha ka baxday oo tiro yar ku soo haraysaan hore waxaa u baxay madaxweynihii Hirshabeelle hadda waxaa ku xigay kii koonfur galbeed marka sidaad u aragtaan taasina inta jirta waxay tahay xibaan ka hadlaya kamid tahay laga laga kombalin garanayo dadku ay cabashooyinka laga hadlaya kamid ahay in dawladda rabo in ay dalka hogaamiso oo ay badbaadiso oo ay isu keento oo midnimo ka shaqaysahay waxa weeye dawladda samaynaysa halkan wuxuu ka hadlayay resourceska dowlad goboleedyada iyo maxaa u muuqan waayeen iyo
in resourceka dawliga ah loo isticmaalo in dadka lagu korabgareeyo in baarlamaankiisa koonfur galbeed suu dhamaa inta xamar la keeno dadka la dejiyo videosha ku aragteen suuqa la qaybiyo lacag ilaalusha la siiyo mataqaana waxaa la yidhaahdaa dhaqaalihii dawladda baaburi iyo diyaarado iyo difia lagu geeyay meesha la yihahdo baydhabo waxa noocaasi oo galeerinka oo dadka dhan ay ujeedaan haddana laga hadlaayo musuqmaasuq baan la dagaalamaynaa iyo dawlad fiican baan nahay iyo Facebook iyo social media laga. Haddaan ku weydiiyo hanaanka maamul goboleedyada doorashooyinka uga socdaan wasaaradda arrimaha gudaha soo xaq uma laha soo wasaaradda arrimaha gudaha ma ahan inay la socoto siday wax u jiraan kasokow musuqmaasuqa hadda ku eedeysa adiga aad sheegtay marka laga soo tago soo ma banaano walaashay wax shaqa xagee ugu taallaa shaqadaas ugu qoran tahay in doorashada ka dhacaysa doorashada ka dhacaysa Puntland waa doorasho local ah dadka Puntland